waxaad nagala socotaan sheeko show barta laga helo kaydka sheekooyin xikmada ku dheehan. hadda ka hor waxaa jiray nin garsoore ahaa oo aad u caqli badnaa. maalin maalmaha ka mid ah baa 2 nin oo ishaysta ugu imaadeen maxkamadda si uu u kala saaro. midka koowaad wuxuu yidhi, ninkan waxaa u dhiibtay lacag, waqtiyaana ka soo wareegay, markaan weydiistayna wuu igu inkiray. garsoorihii baa weydiiyey ninkii dacwada laga ahaa oo yidhi, ma jirtaa in lacag ammaane ah lagu dhiibtay? ninkii dacwada laga ahaa wuu inkiray, wuxuuna yidhi, aniga wax lacag ah ninkan iima dhiiban. hadduu caddayn haayana ha igu caddaysto, haddii kalena waa u dhaaranaa. ninkii lacagta ka maqneed baa yidhi, waa u dhiibtay lacagta, ilaahaana markhaati iiga ahaa. garsoorihii waxa uu ka cabsaday in ninkan lacagta loo haysto been uu ku dhaarto, lacagtana saas ku cuno. garsoorihii baa ninkay lacagta ka maqneed weydiiye oo yidhi, intee lacagta ugu dhiibtay ninkan? wuxuuna ku jawaabay ninkii lacagta ka maqneed, meel halkaas baan ugu dhiibay. haddana wuxuu weydiiyey garsoorihii, meesha ugu dhiibtay maxaa ku yaalay? ninkii lacagta ka maqneed baa yidhi, geed weyn baa ku yaala, hoostiisa intaynu fadhiisanay baan weliba cunto ku cunnay, hooskiisana annagoo harsanayno. markaan bixi rabnay baa ninkan lacagta u dhiibtay. garsoorihii baa ku yidhi ninka lacagta ka maqneed, soco oo meesha geedka ku yaalo aad. waa intaasoo markaa meesha tagtaa aa soo xasuusataa meeshaa lacagta ku duugatay, kadibna ii soo laabo saa iigu sheegtid inaad soo heshay iyo in kale. ninkii lacagta ka maqneed wuu baxay, wuxuuna aaday meeshuu ninka lacagta ugu dhiibay, asoo ka yaaban meesha loo diray, hubana inuu lacag meeshaas ugu tegi doonin. garsoorihii baa ku yidhi ninkii dacwada loo haystay, iska fadhiiso intuu ka soo laabanayo. garsoorihii wuxuu iskaga mashquulay dadkii kaloo safka ugu jiray maxkamadda, iyagana si loo kala xalliyo. asoo shaqadiisa sii wato wuxuu isha ku gaadayay ninkii dacwada loo haystay. markuu dareemay inuu si qabow u fadhiistay, iskuna maleeyay inuu fakaday, baa garsoorihii intuu si kama ugu soo jeestay ku yidhi, ma kula tahay in ninkii uu gaaray meeshuu lacagta kuugu dhiibay? ninkii lacagta loo haystay asoo fakirin buu wuxuu ku jawaabay, armaya meesha ma dhowa, 1 iyo 2 ma joogo ninkaas. garsoorihii baa ku yidhi ninkii lacagta loo haystay, khaa'in yahow, lacagta waad inkiree, meesha lagugu dhiibayna waa xasuusataa. saasayna ugu caddaatay in lacagta loo dhiibtay, waana la xiray intuu ka soo laabanaya ninkii lacagta ka maqneed. isla markaana waxaa lagu xukumay in lacagta lagu ammaanaysto uu celsho. haddaad sheekada ka heshay like dheh, kana dhegayso sheeko show kuwa kaloo badan oo aad kuu cajabin doono. haddaad nagu cusub tahay, subscribe channelka, taabo gambaleelka si sheeko kastoo xikmad badan oo soo gelino kuu dhaafin. wassalaamu calaykum.